kibir iyo dheeldheel ayay ku soo eriyatay dhal yaroo libaax. waa goroyadan lamaan ee labyo dhadigale. dhashan yare libaaxa ahi wax dhiba kuma haynin naftooda. waa uu iska ciyaarayay, laakiinse laba goroyo ayaa awooddoodii oo dhan iyo enerjigoodiiba ku lumiyey inay eryadaan wax aan khatar badan ku haynin oo ah libaax yaroo dhala oo aan haba yaraatee iyaga wax u dhibaato gaadhsiin karin. laakiinse way ka qoomamayn doonaan. hadda waxaa meel dheer ka arkay arkii hogaamiyihii kooxda boqorkii. markii hore goroyada ayaa wax eryanaysay oo kibraysay. hadda laakiinse gooshii dhashayba halkaa ka qaylinaysa oo leh hayaay ilmaha yar ka hadh. goroyadii dheg jala qumaysiin. goor dambe ay aragtay inay bad ku jirto ayay goroyadii ka hadhay eryashadii dhasha yar. meeshii waxaa kaga soo baxay dhammaan mid kasta oo kooxda ka mid ah. markiiba waxaa lagu yaacay goroyadii. goroyada ayaa markii hore wax eryanaysay, hadda iyadii baa ise la eryanayaa. markii hore waxay enerjigeeda ku dhammaysay wax aan waxba uga 15 ahayn. hadda laakiinse waxa loo baahan yahay enerjigii ay markii lumisay inay isticmaasho oo ay kaga dheerayso kooxdan libaaxyada ah ee gaajaysan ee ay afka uga gashay. meeshu waa saxare, waa lama degaan, waa saxaraha Kalahari oo hiidkiisu iyo kuleelkiisu uu aad u fara badan yahay. goroyadu waxay isticmaalaysaa laba lugood oo aad u dhaadheer iyo baalal ay ku duulayso sidii duulimaadka oo kale ah. libaaxu wuxuu adeegsanayaa 4 lugood. 60 kiiloomitir ayuu saacaddii ordaa. libaaxu markuu ordayo goroyadu way ka dheeraysaa. laakiinse maxay kugu taallaa libaaxa iyo goroyadu? waxa mar walba dheeraysaa goroyada. laakiinse iminka enerjigii bay iska lumisay. maanta oo dhan bay iska ordaysay. haddana waxa kaabiga loola saaray in la qabto goroyadii. aakhirkii waa la qabtay, dhulka ayaana laga taagay. markiiba tii dhadiga ahayd ayay qabteen, halka dhadigii isagu uu ka yara awood badan yahay oo u baxsaday. waxoogaa kadib kii dhadiga ahaa xiniyo ayuu iska baadhay iyo raganimo. waa soo weerar tegey oo wuxuu siri kaga rid, laakiinse isagii ayaa halis geli gaadhay. la soco sheekooyinkeenna xiisaha badan halkan aad ka daawataan mar kasta. libaaxii maanta waa uu feestaynayaa. goroyo ayaanu helay oo uu caawa hilibkeeda iskaga dhigayaa hiidka saxaraha Kalahari. oo mar kale iyo muuqaaladeennii fadlan soo qor halkaad naga daawanayso